halkani waa Bahda TV ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aan idiin heynana waxaa ka mid ah madaxweyne Farmaajo oo qadka telefoonka kula hadlay Abiy Ahmed iyo madaxweynaha dalka Eritrea xilli xaalad siyaasadeed oo adag uu wajahayo Cumar Finish oo taageeray maamul gooni ah oo gobolka Banaadir laga dhisayo iyo filla Soomaaliya oo xilka ka ciirinaysa ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta oo beesha caalamka u ballan qaaday inuu la wareegayo xukunka dalka maalmo gudahood Puntland iyo Jubbaland oo mucaaradka kala hadlay xalka gaarista doorashooyinka Soomaaliya doonta hariibayaal sidii uu ku degtay xeebaha dalka Djibouti qodobada iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan u diyaar garooba warkii oo dhameystiran isku soo noqod habboon daawadayaal kuna soo dhawaada warkii oo faahfaahsan fadlan haddii markasta ay ku soo gaaraan wararka Bahda TV subscribe saaro gambaleelka furo madaxweyne Farmaajo ayaa qadka telefoonka kula hadlay Abiy Ahmed iyo madaxweynaha dalka Eritrea xilli xaalad siyaasadeed oo adag uu wajahayo madaxweynaha waqtigiisu ilaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qadka telefoonka waxa uu kula hadlay madaxda dalalka Itoobiya iyo Eritrea oo saaxiibo dhow la ah madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ugu horeeyay madaxweyne Farmaajo kulanka dhanka qadka oo madaxweynuhu la qaatay madaxda dalalka Eritrea iyo dalka Itoobiya ayaa waxaa diiradda lagu saaray xaaladda cakiran ee ka jirta Soomaaliya xilli madaxweynaha muddaxileedkiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu wali la kulmayo cadaadis kaga imaanaya beesha caalamka oo doonaysa in la dhameeyo muranka xooggan ee ka jira doorashooyinka madaxweynaha ayaana labadaasi mas'uul ka dalbaday inay soo saaraan war-saxaafadeedyo ay dawladda federaalka Soomaaliya ay waqtigeedu dhamaaday ku taageerayaan iyo in beesha caalamka ay faragelin ay ku hayso xaaladda Soomaaliya waxa uu sidoo kale uu ka dalbaday in doorashooyinka loo daayo dawladda Soomaaliya oo iyadu ay maamusho waxaana beesha caalamka dhowr mar ay dhaleecayn kala kulantay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo ku dhaliilay faragelin inay ku hayso arrimaha doorashooyinka oo wali muran xooggan uu ka taagan yahay madaxweynaha ayaa taasi waxa uu kaga gol leeyahay inuu iska yareeyo cadaadiska uu kala kulmayo beesha caalamka iyo midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya oo madaxweynuhu ay isku fahmi weysan yihiin qaabka doorashada ay u dhacayso waxaana shir beesha caalamku ra'iisul wasaaruhu la yeeshay uu ka ballan qaaday inuu la wareegayo xukunka dalka maalmaha soo socda madaxweynaha ayaana sidoo kale dalalka Itoobiya iyo Eritrea waxa uu weydiistay inay ka gacan siiyaan qaabkii uu isaga qaadi lahaa culayska kaga imaanaya beesha caalamka oo wali madaxweyne Farmaajo ku cadaadinaysa inuu shir isugu yeero dawlad goboleedyada dalka si loo dhameystiro heshiiskii 17 Sebtembar laga gaaray doorashooyinka waxaana labadaasi dawladood iyagu ay taageero buuxda siiyaan dawladda Soomaaliya xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa ah wali mid kacsan waxaana muran xooggan wali uu ka taagan yahay doorashooyinka Soomaaliya ee qaabka dawladda Soomaaliya u doonayso inay maamusho doorashooyinka Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir oo taageeray maamul gooni ah in loo dhiso gobolka Banaadir iyo filla Soomaaliya oo doonaysa inay xilka ka ciiriso gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish ayaa toddobaadkan xafiiskiisa ku qaabilay guddi siyaasadeed oo ka socda beesha Hawiye kuwaas oo la socdo guddi kale oo ku howlan dhismaha maamulka gobolka Banaadir xoga lagu kalsoonaan karo ayaa waxay sheegayaan in gudoomiye Cumar Finish oo xubnaha kala hadlay hawsha ay wadaan iyagoo weydiiyay talooyin ku aadan dhismaha maamulka sidoo kalena kala hadlay caqabadaha qaar ee ku horgudban dhismaha maamulkan si rasmi ah looma oga socdaalka xubnaha waxa uu salka uu ku hayo hayeeshee waxaa la aaminsan yahay in kulanka dhex maray uu ahaa mid qarsoodi ah oo aysan waxba ka ogeyn madaxda ugu sarreysa dawladda federaalka Soomaaliya hab ugu horeeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahna duqii Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa la aaminsan yahay in xilka uu ku waayay abaabul dhismaha maamulka gobolka Banaadir uu doonayay in laga yagleelo maamul goboleed lamana oga waxa uu ku mutaysan karo gudoomiyaha hadda talada haya Cumar Finish haddii uu sii wado kulamadan ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ee Maxamed Xuseen Roble ayaa beesha caalamka ka ballan qaaday inuu la wareegayo xukunka dalka maalmo gudahood shir u dhaxeeyay beesha caalamka iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo ay weheliyaan midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu ka qabsoomay aaladda fogaan aragga ama Zoom-ka waxaana diiradda lagu saaray arrimo badan oo la xiriira xaaladda Soomaaliya shirka ayaa intii uu socday lagu go'aamiyay in fursad la siiyo wada hadallada midowga musharaxiinta iyo ra'iisul wasaaraha oo maalmihii la soo dhaafay ka wada hadlayay qaabkii uu dhici lahaa banaanbaxa lagaga soo horjeedo madaxweynaha muddaxileedkiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo beesha caalamka ayaa sidoo kale waxa ay boorisay wada hadallada ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta iyo midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya iyagoo wali mas'uuliyiintu ay doonayaan inay kulmaan kuwaas oo iyagu ka wada hadli doona arrimo fara badan oo doorashooyinka Soomaaliya iyagu muhiimsan tahay waxaana hoosta laga xariiqay muhiimadda ay leedahay wada hadallada xogo hoose oo kulankaas laga helay ayaa waxay sheegayaan in Maxamed Xuseen Roble uu beesha caalamka ka ballan qaaday in xukunka dalka uu la wareegayo maalmo gudahood taasi oo ka dhigan in madaxweynaha muddaxileedkiisa uu dhamaaday uu ka gaabsan doono ka hadlidda arrimaha lagu muransan yahay ee doorashooyinka dalka iyadoo mar hore uu ka gaabsaday madaxweynuhu maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa socday dadaallo xooggan u dhaxeeya mucaaradka iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta
iyadoo mucaaradku ay xukuumaddu ka aqbashay in Sabtida ay dhigtaan banaanbaxa kaas oo ah mid lagaga soo horjeedo madaxweynaha muddaxileedkiisa uu dhammaaday oo mucaaradku ay sheegeen in sharci darro uu ku fadhiyo filla Soomaaliya isla markaana aysan madaxweyne u aqoonsanayn. beesha caalamka ayaa waxay dadaal xoogan ugu jirtaa inay soo afmeerto wadahadallada muranka uu ka jiro iyadoo dadaal xoogan ay ugu jirto in la xalliyo arrimaha la isku hayo ee doorashooyinka dalka ay ugu muhiimsan tahay. Puntland iyo Jubbaland ayaa mucaaradka kala hadlay xalka gaarista arrimaha doorashooyinka iyadoo weli mucaaradku ay wadaan kulamada ay ra'iisul wasaaraha la qaadanayaan ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in mucaaradku ay kulan qadka ay la qaateen madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland oo fikir ahaan ka duwan dowladda federaalka Soomaaliya. Maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaana mucaaradka ku dhiirigeliyay wadahadallada ay la leeyihiin ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta kaasi oo si daba joog ah u socda si midowga musharaxiinta loogu qanciyo maadaama madaxweynaha ay ka soo horjeedaan. dowlad goboleedyada ayaa midowga u sheegay inay sii wadaan kulamada xukuumadda Soomaaliya ay la leeyihiin waxaana labadaasi maamul ay aad kaga soo horjeedaan dowladda Soomaaliya. maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaana qoraal ay soo saareen waxa ay ku sheegeen inay soo dhaweynayaan shir waliba oo looga hadlayo xal u helidda arrimaha doorashooyinka ee muranka xoogan uu ka taagan yahay balse aysan ka qaybgelin shir lagu qabanayo meel aan amnigeeda la isku halayn karin. labadaasi maamul ayaa horey waxa u shaaciyeen inaysan doonayn in shirka uusan ka qabsoomin filla Soomaaliya iyagoo horey ugu taliyay in shirka haddii ay ka qaybgalayaan ay doonayaan inuu ka dhaco garoonka diyaaradaha aadan cadde. waxa uuna madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni horey u sheegay in sida uu kaga baqayo dagaalamayaasha Al-Shabaab uu kaga baqayo si lamid ah filla Soomaaliya. maamulada ayaa weli war ka soo saarin baaqashada shirka uu ku baaqay madaxweynaha muddaxileedkiisa uu dhammaaday kaas oo la filayay inuu ka furmo Muqdisho iyadoo madaxda dowlad goboleedyada qaarkood ay dalka ka maqan yihiin halka kuwa kale ee jooga qaarkood aysan dowladda federaalka Soomaaliya qaab ahaan aysan taabacsanayn. waxaana magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya weli ku sugan madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaaw Xuseen oo weli isagu dadaal xoogan ugu jira qaabkii midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya loo qancin lahaa. doonta hariibayaal siday ayaa ka degtay xeebaha dalka Jabuuti. tabaneeyo muhaajiriin Afrikaan ah ayaa laga cabsi qabaa inay dhinteen kadib markii tahriibayaal ay ku tuureen badda Jabuuti xilli ay ku sii jeedeen dalka Yemen iyagoo rajeynayay inay gaaraan dalka Sacuudi Carabiya si ay shaqo uga helaan. doon siday 200 oo muhaajiriin ah ayaa waxay ka degtay xeeb ku taala dalka Jabuuti sida uu sheegay afhayeenka hay'adda caalamiga ah ee socdaalka. ha yeeshee dad ka badbaaday dhacdadan ayaa waxa ay sheegeen in saacad kadib markii doontu ay baxday ay tahriibayaashu go'aamiyeen in doonta culayska uu ka batay ayna ka tuureen 80 qof sida uu sheegay afhayeenka ayaa sidoo kale waxa uu ku warramay in ilaa iyo hadda la helay meydadka 5 qof. dadka inta badan ku harqama xeebaha dalka Jabuuti ayaana inta badan waxa ay ka yimaadaan dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya iyagoo isku dayaya inay ka baxsadaan saboolnimada ka jirta dalalkooda isla markaana ay shaqooyin u raadsadaan dalalka Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka Carabta. qaarkood ayaa marka ay gaaraan dalka Yemen ku xayirma kadib markii ay ku guuldareystaan inay ka gudbaan xuduudda dalka Sacuudi Carabiya waxaana kadib mararka qaar ay badda ku harqamaan iyagoo isku dayaya inay dalkooda dib ugu soo laabtaan. wararka sidoo kale ka imaanaya dalka Jabuuti ayaa waxay sheegayaan in dadkaasi muhaajiriinta ah ee doontaasi ay la degtay u badnaayeen Soomaali iyo Itoobiyaan kuwaas oo iyagu markaa doonayay inay ka tallaabaan baddaasi. dad badan ayaa lagu soo warramayaa inay geeriyoodeen maadaama laga tuuray doonta waxaana dadkaasi geeriyooday ay u badan yihiin sida wararku ay sheegayaan Soomaali iyo Itoobiyaan. waad ku mahadsantihiin daawashada warka. haddii ay tahay markii kugu horeysay aadna soo booqato subscribe noo saar oo like noo saar asxaabtaadana u share gareey. mahadsanidin.